maamulka dowladda hoose ee degmada Laascaanood oo ay u horeeyaan duqa degmada Cabdicasiis Xuseen Taarwale iyo xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdiraxmaan Khadar Gaas ayaa xariga ka jaray 3 wado oo laami ah oo ay dhistay dowladda hoose ee degmada Laascaanood qaarna ay dayactir ku samaysay waxaana saddexdaasi wado kale yihiin wadada isku xidha xabaalaha sayidka iyo gudaha magaalada wadada isku xidha dhakhtarka weyn iyo xaafadda shacabka wadada isku xidha suuqa iyo xaafadda Dixjano waxaana wadooyinkaasi ka warbixiyay xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdiraxmaan Khadar Gaas iyo maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale iyagoona sheegay inay ka mid yihiin saddexdan wado mashaariic tiro badan oo ay dowladda hoose ee degmada Laascaanood hirgelisay 26 bishii shanaad 2021 waxaan maanta xariga ka jaray wadadii isku xidhisay xawaalaha iyo magaalada Laascaanood oo runtii ahayd wado baahi weyn loo qabay muddo kooban lagu dhameystiray dadaal weyn aanu gelinay annaga iyo shirkadda Shire Construction oo ah shirkaddii qandaraaska qaadatay oo uga mahadcelinayna sida dhaqsaha leh ee kartida leh ay markiiba wax weeyaan ay wadada tara u dhameystireen iyo waliba tayada ay leedahay oo ah mid ka duwan laamiyadii hore inoogu jiray oo kale farxad weyn bay noo tahay runtii inaan maanta soo gabagabeeyno oo xariga ka jarro maanta laga bilaabana ay u furan tahay cid kasta oo isticmaalaysa wadadan ka jaraynaa aynu taaganahay wadadii saddexaad oo aynu maanta xariga ka jarayno wadadana waxay isku xidhaa xaafadda shacabka iyo dhakhtarka weyn waxaynu hore xariga uga soo jarnay wadada isku xidha xabaalaha iyo magaalada iyo wadada isku xidha gooladda ilaa masaajid huda saddexdaa mashruuc oo wadooyina baynu maanta xariga ka soo jarnay waxaynu kaloo maanta xariga ka jarnay xaruntii gowraca ee xoolaha lagu qalayay iyo xaruntii dhireynta ee magaalada Laascaanood waa isku 5 mashruuc 5taa mashruuc baynu maanta xariga ka jarnay runtii waa maalin farxadeed waa maalin horumarineed golihii deegaanka iyo dowladda hoose Laascaanood mar walba waxay heegan u ahaayeen horumarinta degmada Laascaanood 5tan mashruucna waxay ka mid yihiin horumarinta uu ku sii sagootiyayo golaha deegaanka iyo degmada Laascaanood shaqadoodii ay ku sii dhamaanayso 5tan mashruuc aynu maanta xariga ka jarnay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood mas'uuliyiinta shirkadda Shire oo dhisaysay wadadaasi iyo shacabka magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay dareenkooda maanta una mahad celiyay maamulka dowladda hoose mashaariicdan ay hirgeliyeen dariiqan oo aanu in badan marinay oo dhibaato nagu hayn jiray oo dadka lagu aaso in maanta laga jaray xariga oo lagu guulaystay in uu dhammaado in wadadii labaad cusbitaalka qaybta ka soo leexanayso cusbitaalka imanayay oo rebuilding lagu sameeyay iyadoo biyo markii hore wax yeeleen haddana rebuilding wanaagsan lagu sameeyay oo haddana aad wada cusub laga dhigay in maanta iyana xariga aanu ka jaranno mahad ilaahay weeye arrintaas oo aad iyo aad ay uga shaqeeyeen maamulka degmadu xogayaha dowladda hoose iyo maayirku aad bay ugu mahadsan yihiin waa u mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya afkii shirkadda Shire Construction alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baan ugu mahadinaynaa iyo maamulkayga noo dhis Liibaan Qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascaanood.